sheeko Juxa iyo xarig. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Juxa hooyadii ku tiri, hooyo, maanta waan alla baryayaa ee lacagtan qaad oo suuqa aad, waxaadna inooga soo iibisaa neef ari ah. Juxa intuu suuqii tegay ayuu soo gaday neef ari ahaa, kadibna wuxuu isku dayay in uu soo qaado ama soo xambaaro. Dhib iyo rafaad badan kadib ayuu keenay isaga oo neefkii sida ama xambaarsan. Hooyadii ayaa la yaabtay oo tiri, hooyo, maxaa kuugu dhacay? Ma waxaad garan weyday in aad suuqa xarig ka gadatid kadibna neefka suurka kaga xirtid markaana aad soo kaxaysid? Juxa ayaa yidhi, hooyo, hadda ma garan, laakiinse marka xiga ayaan samayn doonaa sidaas. Maalmo kadib ayaa markale hooyadii tiri, hooyo, maanta lacagta way inagu yar tahay, bal waxaad inoo soo iibisaa hal xabbo oo digaagad ah. Juxa suuqii ayuu tegay, wuxuuna soo gaday digaaggii, kadibna wuxuu iibsaday xarig, kadibna surka ayuu digaaggii uga xiray, wuuna soo kaxaystay. Gurigii markuu yimid ayaa hooyadiis aragtay digaaggii oo baqtiyay. Markaas bay ku tiri, hooyo, maxaad sidaan u yeeshay? Juxa wuxuu yidhi, hooyo, adiga ayaa yidhi sidaa yeel oo xariga ku soo kaxay. Hooyadiis yaab